Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaan asxaabta qiimaha badan ee ku xiran janalka Aamin Technology isku soo noqdo wanaagsan. Insha Allahu tacaala maanta waxaynu qaadan doonaa cashirkii lixaad aynu ku baranayna Photoshopka. Cashirkan maanta hadduu alla idmo waxaynu kugu baran doonaa sida loo sameeyo ID card. ID cardkan wuxuu noqon doonaa ID card koowaad aynu sameyno. Design fudud ayaan idin soo dooray. ID cardkan waxaan ugu xigi doonaa insha Allahu tacaala ID cardkan ID card kasii qurxan, kasii professionalsan, kasii quality fiican. Marka horeeto waxaynu fahmi doonaa nidaamka loo sameeyo ID card. Cashirkan ayaynu ku baran doonaa. Kadibna hadduu alla idmo ID card kale ayaan sii sameyn doonaa. Marka horeeto waxaynu soo furi doonaa artboardkan. Sidaa la socotiin ayaan hore waxaan idin soo diray yacni size ay leeyihiin dhammaan designada ama artboardyada. Sizekan waxaan soo dhigay telegramka. Haddii aad danaynaysid telegramka wuxuu yaalaa descriptionka videogan iyo videoyadii horeeto. Waxaynu sameyn doonaa maanta hadduu alla idmo ID card. Cabirka aynu qaadan doonaa waxa waaye 614 347 oo pixel ah. Cabirkan hore ayaan usoo geliyey waa soo gashi doontaa. ID cardkan ayaan soo disaagareyn doonaa. Marka isla socod wanaagsan. fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Waxaynu ka bilaabi doonaa designkan weliba qaybta koreeto. Qaybta koreeto waxaynu soo gashi doonaa marka horeeto shape ayaanu soo gashi doonaa oo rectangular ah. Shapekan markaanu soo gashano qaybta koreeto ayaanu ku daragareyn doonaa ama aynu ku jiidi doonaa. Kalarka ayaanu ka bedeli doonaa. Kalarka buluug ayaan qaadan doonaa. Designka jeceshahay waa qaadi kartaa. Designka kore markaanu soo gashano waxaynu soo geli doonaa loogadaas. Sawirkan iyo sawirada kaleetaba waxaan idin soo dhigi doonaa barta telegramka ayaad ka heli kartaa. Meeshaas ayaad kala digi kartaa. Hadda waxaan dhihi doonaa file kadib place link. Sawirka ayanu soo dooran doonaa. Sawirkan sida ujeediinba backgroundkiisa cadaan waaye. Backgroundkan marka si fudud ayaa ku jari kartaa. Cashir baa cashir ka dambeeyo faa'iido cashirkii hore lagu baran ayaan isku dayi doonaa insha Allahu tacaala ama tirigyo inaan idin soo geliyo. Soo jeedada backgroundka cadaan waaye. Waxaan kusoo darsan doonaa mid kaleeto. Meeshiisana ku jiri kartaa balse saas ayaa noogu fiican si aan u aragno backgroundka inuu cadaan yahay. Kadib sawirka soo dul saar. Sawirkan sida ujeediinba hadda ma dul saarmayo. Haddaan jiido waa ka hoos maraya. Waxaad tigi doontaa qaybta sawir kor u qaad daraagarey. Kadib hadda waa ka kor mariyay. Sida ujeediinba sawirkan hadda backgroundkiisa cadaan waaye. Sidee ku jari karaa? Waxaynu dul tegi doonaa qaybtan erase tool. Weliba waxaynu kasii tegi doonaa qaybtan ugu hooseyso magic erase tool ah. Markaad dul tagtid kuma soo baxayso optionada kaleeto right click ku kordhaysi kugu soo baxaan. Magic soo dooro. Magic kaliya hal mar kali ku dheh meesha background ka jaraysid. Saas ayuu kaaga jarmay. Ama sidoo kaleeto wuxuu kuu saari doonaa mararka qaar qoraal. Markaa kali ku siidid qoraalka markuu kuu saaro waxaad dhihi doontaa okay. Mar labaad ayaa waxaa ku sii doontaa click. Saas ayuu noogu jaray. Sawirkan waynu qaadan doonaa. Waxyar waynu yareyn doonaa. Kan marka uma baahnin kaliya waxaanu ku jarinaynaa qaybta hoose. Kan oo guduudka waa iska tiri doonaa asigane. Kadib waxaanu soo gashi doonaa qaybta kaleeto ah qoraalkan. Aamin Technology School ama University. Waxaan dhihi doonaa kadib Aamin Technology University. Kadib tigtan ayaanu saari doonaa. Tigtan markaanu saarno fartan si aynu u weyneysano marka hore move tool soo dooro. Kadib waxaad qabataa shift la qabo. Hoos ayaan u weynay doonaa shift qabo adoo haayo daraagarey xagagay sidoo kaleeto shift soo qabo qaybtan hoose. Shift geeskaas kaleeto qabo si xag dhankaas kale aad ugu jiidid. Fartan waxaanu kali doonaa kalarkeeda white ama cadaan. Control A leh kalarkaas dooro kadib qaybtan white kan u geey. kadib farta qurxisay hadda yacni afar weyn aad u baahan tahay waxyar soo weynay shift la qabo adoo shift haayo xagga geey sidoo kaleeto image-kan waxyar xagga nooga siki intaas waxaanu ku design gareynay qaybtan koreeto qaybtan waxaan u imaan doonaa sawirkan marka horeeto waxaanu soo gashan doonaa rectangular tool kadib markaanu soo gashano rectangularkan waxaan u yeelan doonaa stroke wax loo yaqaan kalarkiisa noo hayo balse waxaan u yeelan doonaa stroke qaybtan stroke ayaanu furi doonaa kalarka waxaan ka dhigi doonaa blue stroke marka size-kiisa waxyar ayaanu soo weynay doonaa si aad u aragteen stroke waxaa la dhahaa rectangular wareegan gees ka soo muuqanayo markaa weynayna waa soo badooyaa waxyar ayaanu ka dhigi doonaa ilaa adii xad intaan ayaanu ku daysan doonaa intaan markaynu ka dhigano kadib waxaanu soo gashan doonaa sawirka file tag file markaad tagtid place link dheh sawirkan asina telegramka ayaad ka heli kartaa
place link soo dheh sawirkan noo soo jiid inta noo dulkeen kadib calaamaddaas tigta saar wax yar yarey hore ayaan u barnay sida looga dhigo mask waxaynu tegi doonaa qaybtan sawirka sawirka iyo shape-ka waa inuu koreeyaa sawirka markaad mask ka dhigayso create mask right click dheh kadib waxaad dhahdaa create clipping mask hadda clipping mask wuxuu yahay sawirkii soo jeedin madaa xagga aan u wado waa hoos gelaya lama arkaayo geeskaas ayaynu geyi doonaa wax yar inta ayaynu soo darageli doonaa sawirka marka wax yar shape-ka ayaan dib u celi doonaa shift la qabo wax yar xag u celi labadooda markaas aad isugu xirtid highlight saar hal mar isla saar highlight kadib qodayrta u weynayso wax yar xoogaa intaynu weyni doonaa kan intaan ayaanu ka dhigi doonaa qaybtan markaanu ku sameyno waxaynu soo gasho doonaa qaybtan ku xigto oo ah name iyo id card iyo xogta marka hore waxaan ka bilaabi doonaa qaybtan name ah type tool soo dooro ama qaybta farta loo qoro waxa loo yaqaanaa type tool waxaad qortaa kadib name markaa qortid farta caddaan waa control a dooro kadib kalarkaas tag farta kalarka jecesha ka dhig madow ayaan ka dhigi doonaa intaas markaynu sameyno wax yar shift noo qabo fartaana soo weynaysan doonaa shift kadib namekan inta noo gey asigan alta qabo asagoo kuu saaraya move tool wax yar hoos u wad sidoo kale alta qabo alta mar kaleeto alta sorry cafwan waa ina alta haysid alta hilmaamaha alta qabo qaybta kore name waa qaybta kale waxaanu ka dhigi doonaa id no qofka id card ku qaadanayo dhigto jaamacadda sidoo kaleeto qaybta kale waxaanu ka dhigi doonaa kalaaska uu dhigto waxaanu ka dhigi doonaa qaybtan kaleetane qofkan yani telefoonkiisa xogta meesha laga heli lahaa haddii yani emergency dhaco sidoo kale qaybtan waxaanu ka dhigi doonaa id cardkan xilliga uu dhaceeyo oo loo yaqaano expire intaas markaynu sameyno waxyar waanu kala siki doonaa waanu qurqurxi doonaa markasta adiga oo qurxisi kartaa sidaa doonta ayaa ka dhigi kartaa intaa markaanu sameyno kadib waxaynu qori doonaa xogtan oo dhammaystiran marka hore waxaynu ka bilaabi doonaa qofkan magaciisa magaca ayaanu ka bilaabi doonaa marka horeeto haye ahmed aamin waa magacayga iska barta ku faraxsanaana maanta magacaygu dhammaystiran aan idiin soo gudbiyo sidoo kaleeto keliya move tool soo dooraa sigaa kelig ku leh kadib alta qabo copy garey intuu waqti badan naga dhumi lahay tan ayaanu isku copy gareysan doonaa keliya xogta ayaanu ka bedeli doonaa double click dheh kadib id cardka ninkan waxuu bartaa computer science ama computer application midaa dhihi dheh isdhaama ma lahan computer science ayaanu ka dhigi doonaa sidoo kaleeto id garkiisa waxaan ka dhigi doonaa 23 oo hadda la joogo waana qofkii 205aad intaas ayaynu ku dayi doonaa sidoo kaleeto kalaaska uu dhigto waa computer science kalaaska ah weliba kalaaska 15aad intaas ayaynu ku dayi doonaa sidoo kaleeto telefonkiisa waxaynu dhihi doonaa 252 oo kale furaha soomaali ah 61 kadib iga buuxi sidoo kaleeto waxaynu dhihi doonaa qaybtan kaleeto xilliga uu dhici doono id cardkan bisha koowaad 01 bisha koowaad kowdeeda wuxuu dhici doonaa 2027 sidaynu iska dhihi doonaa intaa markaynu sameyno marka intaan si aan hal mar yani intaan haddii aan hal highlight ayaynu soo saari doonaa si aynu u maamulno iyada aynu u weyneyno shifti qabo wax yar hoos u daragelay intaa markaynu sameyno tan inta wax yarna u siki okay dheh kan sorry waxaynu hilmaamnay yani kan ayaa waxaanu ka dhigi doonaa sawirkan rectangular ku wareegsan koorna geeskaas ayaynu ka jari doonaa marka hore kan intaan iska bixi doonaa si aan u doornay kan waxaad doorataa shapekan markaad dooratid waxaad soo doorataa window tag qaybta propertieska soo furo propertieska markaad soo furitid waxaa kuusoo bixi doona propertieskan geeskan aynu qaban doonaa rectangle si aynu ugu dhigno wax yar haddaan saas u weyneyno koob circle ayuu noqon doonaa dib ayaynu celi doonaa ilaa hadii xad bas markaynu ka dhigno wax yar oo beene koona intaas ayaynu ka dhigi doonaa intaas noo hilmaama cafwan adiga raali gelinaa dib ayay igu soo dhacday sawir ku tuuso sawirka markaasna highlight isla saar si aynu u weyneyno
taas markaynu sameyno intaan isla maamulno waxaynu isugu geli doonaa qaybtan hoose oo locationka ah id cardkan yani hadhow hadduu dumo si loogu soo hagaajiyo aamin technology university iyo weliba meesha ay ku taalo kan waxaynu ka dhigi doonaa isla bulugiisana kalarkan bulug ayaanu ka dhigi doonaa kadib type tool ayaanu soo gashi doonaa qaybtaas aa ujeediinba typicon waxaan cashir ka horreeya telegramka ayuu yaalaa si loogu soo darsado typiconkan waxaad soo fiirsan doontaa cashir ka horreeya waxaanu tegi doonaa type tool marka horeeto type tool markaaynu tagno kasar doonaa qaybtana waxaan ka dhigi doonaa typicon softwarekan waxaa idin soo dhigay telegramka meeshaas ay keli kartaa kadib keli markaanu dhahno app ayaa dooran doonaa si uu noogu soo baxo locationka kalarkiisa waxaynu ka dhigi doonaa white qaybtaas ayaanu tegi doonaa color white ayaanu ka dhigi doonaa kadib okay dheh wax yar waxaanu celi doonaa intaynu saki doonaa taas markaaynu dhahno kadib waxaynu soo dooran doonaa farti caadiga ah dhan kasto kadib waxaan dhihi doonaa wuxuu ku yaalaa Mogadisho banaadir oo gobolka ah Soomaaliya tan ayaanu iskaga dayi doonaa kadib wax yar intuu celi intan ayaanu ku garaysan doonaa kan si uu noo dhaqaaqin waxaa samaysaa waxaa tagtaa qaybtan kan si uu kugu doorinaysa horta saar qaybtan marka waxaynu saari doonaa qufulka nagama dhaaqi dooyo highlight tan noo soo saar tan alta qabo tan laynoo koobi garay highlight markaad saartid alta qabo koobi garayso emailka ayaa noo dhiman qaybtan double click dheh farta kadib email ayaa la soo gaabaa marka typicon la joogo qaybta kaleeto fartana waxaan dhihi doonaa emailkaada gasho @gmail.com waxaan filayaa inay si tahay u garaynay naqshadan id cardkan waxaan dhahay waa id card koowaad designka bis idinku tuseeyay id cardkan id card ka sii fiican ka quality fiican ka design fiican ayaanu design garay doonaa cashirada soo socda hadduu alla idmo insha allahu tacaala cashirka maanta inta ayaanu ku ekay doonaa fadlan haddaan nagu cusubto waxaan kaa codsanaa kuli kow jeer inaad nagu soo biirto janalka subscribe noo saarto asxaabtaadan u sheer garayso waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh